5 ka mid ah qudhaanjada ugu halista badan adduunka. Qudhaanjadu waa qayb ka mid ah nolol maalmeedka. Waxaad ku dhex arkaysaa beertaada iyagoo ku dul gurguuranaya miisaska jikada ama samaynta waddooyin yaryar oo hagaagsan oo dhex mara laamiyada. Inta badan waa kuwo aan dhib lahayn oo ay fududahay in la iska indho tiro. Laakiin dhammaan qudhaanjadu maaha kuwa fudud. Noocyada qaarkood ee adduunka ayaa loo yaqaan inay yihiin kuwo aan caadi ahayn oo gardarro ah iyo xaaladaha qaarkood xitaa khatar u ah dadka. Iyadoo magaalooyinku ay korayaan iyo jawiga cimiladu isbedelayaan, la kulanka qudhaanjadan ayaa noqonaysa mid aad u badan. Qaar ka mid ah ayaa keeni kara qandho xanuun badan, halka kuwa kalena ay kicin karaan fal-celin xasaasiyadeed ama arrimo caafimaad oo ka sii daran. Haddii ay jirto hal qudhaanjo oo aanad doonayn inaad isku qasto, waa qudhaanjada rasaasta. U dhalasho ahaan kaymaha roobaadka ee bartamaha iyo koonfurta Ameerika, noocaan Barabonera alafata, waxaa loo yaqaanaa inuu haysto wax ay dad badani ku tilmaamaan qaniinyada cayayaanka ugu xanuunka badan adduunka. Dhibbanayaashu waxay yidhaahdeen xanuunku wuxuu dareemayaa sida qoto dheer, shoog koronto, wuxuuna socon karaa saacado. Ma aha kuwa si dabiici ah u dagaalama, laakiin haddii aad u dhowaato buulkooda, dib uma celin doonaan. Xataa xindi keli ahi waxay ka tagi kartaa qof weyn oo caafimaad qaba jahawareer, taasoo ka dhigaysa qudhaanjada mid ka mid ah kuwa ugu cabsida badan gobolkeeda. Maricopa harvester ant. Xajmi yar laakiin aad u khatar badan, qudhaanjada guryaha Maricopa Bogonomyrmex maricopa waxay ku nooshahay lamadegaanka koonfur galbeed ee Maraykanka. Waxa ka dhigaya inay soo baxaan waa suntooda, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu sunta badan cayayaanka. Qaniintoodu waxay dareemaan fiiqan iyo gubasho, dadka qaarna waxay kicin kartaa fal-celin xasaasiyadeed oo daran. Caadi ahaan waxay ku mashquulsan yihiin ururinta abuur iyo inay iskood u dhowraan, laakiin haddii buulkooda la dhibo, waxay uga jawaabaan si degdeg ah oo gardarro ah. Bulldog ant. Duurjoogta Australia waxay caan ku tahay inay adag tahay, qudhaanjada bulldogna way ku nooshahay. Laga helay qaarada oo dhan, noocaan oo ka yimid genus Myrmecea waa mid weyn, dhaqso badan oo aan raaxo lahayn. Waxay leeyihiin aragti aad u wanaagsan, waxay si degdeg ah uga fal-celiyaan faragelinta, waxayna qaadaan weerar labalaab ah, qaniinyo iyo qaniinyo isku mar. Suntoodu waxay keentaa xanuun aad u daran iyo, marar dhif ah, fal-celin xasaasiyadeed oo noqon kara xaalado degdeg ah oo caafimaad. Qudhaanjada dabka ee cas ee dalka laga keeno. Asal ahaan koonfurta Ameerika, qudhaanjada dabdamiska ee la soo dhoofiyo, Solenopsis inthicta, ayaa hadda ku faaftay qaybo ka mid ah Maraykanka, Aasiya iyo Ustaraaliya, waxayna la timid qaniinteeda dabka ah. Qudhaanjadu waa dagaal badan, dhul, waxayna u muuqdaan inay ku soo qulqulaan marka ay dareemaan hanjabaad. Qaniintoodu waxay keentaa dareen gubasho oo fiiqan waxayna badanaa keentaa finan cuncun ah. Shakhsiyaadka xasaasiga ah, qandho badan ayaa sababi kara dhibaatooyin caafimaad oo halis ah. Iyo sababta oo ah waxay yihiin kuwo aad u fara badan, ka takhalusida iyaga marka ay degaan maaha hawl yar. Florida harvester ant. Sawirka wakiil. Qudhaanjada Florida Bogonomyrmex badius ma samayn karto cinwaanno, laakiin qaniinkeedu wuxuu hubaal ka dhigayaa calaamad. Waxaa laga helaa gobollada bacaadka ah ee koonfur bari ee Maraykanka. Qudhaanjadan inta badan maaha kuwo gardaran, ilaa aad ugu dhowaato gumaysigooda. Qaniintoodu waxay keentaa dhismo qunyar ah, xanuun raagay, iyo barar waa caadi. Waxay aad ugu firfircoon yihiin cimilo diiran, taasoo ah marka ay u badan tahay inay shilalka galaan. Kuwa qaba xasaasiyadda cayayaanka, taxaddar ayaa loo baahan yahay.